shirkan jaraa'id ee uu warbaahinta u qabtay wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa koreen waxa uu ka hadlay baaridii ay ku sameeyeen wasaaradda maaliyadda hay'adda hantidhowrka waxa uu sheegay in sidii loo baahnaa aysan u sameynin baaridda hay'adda hantidhowrka. Reportkaas ayaa la soo saaray shalay oo ka hadlaya auditkii lagu sameeyay ama baaridii lagu sameeyay wasaaradda maaliyadda gaar ahaan lacagaha yimaada iyo lacagaha la qaado meelo badanna waa reportku waa taabanaya. Marka hore waxaan oranayaa waxa weeye hantidhowrku waa hay'ad madax bannaanideedana runtii wax la soo dhaweeyay weeyaan in wax lala qabto weeyaan intaa iyo intaasaan ka soo shaqeynay wasaaradda meelo noocaas oo kala ah waa hay'adaha ugu muhiimsan weeyaan adduunka dalkeenana wuxuuna qaadayaa marka runta la isku sheego wuxuuna qaadayaa marka waa soo dhaweynaynaa hantidhowrka iyo madax bannaanidiisa iyo shaqada ay qabanayaan hay'adaas waa soo dhaweynaynaa laakiin haddana anaguna mas'uuliyad baa saaran dadka Soomaaliyeed saareen ayagana mas'uuliyad baa saaran labadayadu in mid waliba mas'uuliyadiisa ka soo baxo weeyaan waxa mas'uuliyadana saaran waxa marka hore marka reportka la qorayo ilaa anaga report naga qorayahay inaan la falgalo oo aan wada sheekaysano weeyaan ama aniga ha noqoto ama wasiirada kale ha noqoto ama ha noqoto xisaabiyaha la isla falgalo oo la isweydiiyo wax ayaa aad loogu baahan yahay waxaan isleeyahay anigu taasi sidii loo baahnaa umay dhicin aniga iyagu muuqata. dhinaca kale wasiir Beyle waxa uu hoosta ka xariiqay lacagaha ka yimaada dibadda ee ku jira akoonada in ay yihiin kuwa isku mid ah oo aanan qalad ku jirin waxa uu shaaciyay in qasnada dawladda ay ku jirto lacag ka badan tii hantidhowrku uu sheegay. marka waxaan halkan ka cadeynayaa in waxa weeye annaga World Bank account-kiisii wixii ku jiray ee laga soo wareejiyay iyo Central Bank ayaga wixii ku jiray iyo corresponding bank waxa ku jira anagu leenahay halkan wasaaraddu leedahay dawladdu leedahay iyo waxa anagu aan leenahay waan isticmaalnay inay isku mid yihiin isku mid weeyaan tuugna ma xadi karo figureskan sheegayna anagu ama numberradan sheegayna waa isku mid weey waxaan doonayaa halkan warqad baan qoray aan ka jawaabayo warqadaasi marka kulay si baad u heli doontaan hadii alla yiraahdo halkan waxa ku qoran waan itusayaa halka waxa ku qoran laba jadwal baa ku ama laba table baa ku qoran. ugu dambeyntiina wasiir Cabdiraxmaan Ducaale Beyle waxa uu sheegay in wax lacag ah aanan gacan lagu qaadan karin sida ay ku shireen golaha wasiirada waxa uu sheegay lacagta la qaadanayo in ay marto qalabka systemka ah oo la soo diro oo ma garanaysaa lagu gacanta lagu soo qaadaa ma jirto wixii gacan lagu qaaday waa la joojiyay cabinetka golaha wasiirada ayaa shiray qaanuun bay soo saareen waxay yiraahdeen yaa gacanta wax daba lagu soo qaaday cid halkan joogtana yaa loogu qaadin wax kale meelo kale ka yimaadana lagu soo qaadin laana dhibaatadeeda ayaa badan karta qof lacag sida dhibaato sameyn kara marka taasina waa taa weeyaan intaasaan ku soo gabagabeynaya lacagta halkan taala dadka Soomaaliyeed baale ummadda Soomaaliyeed ka bahla baale halka taagi marka qofka wax ka doonayo wala inaad heli doon hatta soo heshana waa kula karbaashayna cidi waxa sameeyay wala waa kula karbaashayna laakiin indhahan ku haynaa indhaha yaga furan adimadeeda furan oo gacantaada furan oo waxa weeye lacagta halka timaada dadkii lahaana waa daba joogan Soomaa dadkii lahaana waa daba joogan anaguna waa daba joogan ummadda Soomaaliyeed way daba joogtaa. Mukhtaar Cabdi Aadan, Telefishinka SBC, Muqdisho.